wadooyinka magaalada Kanu ee ku beegan waqooyiga Nigeria ayaa lagu arkaa dhalinyaro cabaya sharoobada qunfaca oo ay ku jirto maadada codeine. dowladda Nigeria ayaa sheegtay in 3 milyan oo sharoobadan ahi la cabo maalin kasta. tiradan ayaana matalaysa kaliya 2 gobol oo ka mid ah dalkaasi. dhadhanka macaan ee sharoobadan ayaa keentay in dadku ay qabatimaan. cabidda badan ee maandooriyahan ayaa khatartiisu ay gaartay heer aan la filaynin. tani waa arrin halis ah, qof kasta ayay saamaynaysaa. guriba guri ayuu u dhiibayaa. haddaad mooddo inaad nabad qabto ma badqabtid. waxaana ay saameyn weyn ku leedahay maskaxda iyadoo horseeda waali. taasina waxay keentay in ay dowladdu samayso xarumo lagu xiro dadka qabatima si aanay u waxyeelaynin bulshada kale. gabadhan 16 jirka ah ayaa u diraysa fariin dhalinyarada kale ee iyada ku da'da ah. run ahaantii dhalinyarta waxaan ku dhihi lahaa iska ilaaliya, noloshiina ayay baabi'in doontaa. hay-adda la dagaalanka daroogada ee qaranka ayaa ka howlgasha wadooyinka toddobaad walba, balse waxa ay qabtaan kaliya 10% sharoobooyinkan. halkan waa jiidda hore ee la dagaalanka sharoobadan ay ku jirto maadada codeine. baaritaano qarsoodi ah oo aan wadnay 5 bilood annagoo iska dhigayno dad uga ganacsada daawadan qufaca si sharci darro ah ayaan ku duubnay muuqaalo tusinaya kala iibsiga walxaha sharci darrada ah. halkan dukaan ma ahan ee waa warshad, ma fahmaysaa? xitaa haddii aad doonayso 500 oo kartoon waa samayn karnaa. hadda ayaan heli karnaa. muuqaalkan waa warshadda Bayoraj, waa mid ka mid ah soo saarayaasha sharoobadan qufaca ee dalka Nigeria. shakhsiyaadkan ayaa iyaguna ku iibinaya daawooyin ay ku jirto maadada codeine suuqa madow. sharoobadan qufaca marka ay ardaydu dhadhamiyaan waxa ay tahay mid aan iska dayn karaynin oo balwad ku noqonayso oo ay sii jeclaanayaan. marka waxay noqonaysaa inay daba socdaan. warshadda Bayoraj ayaa noo sheegtay inaysan si sharci darro ah u gadin daawooyinka ay ku jirto maadada codeine. sidoo kalena in Master Al-Mansuru uu ka tagay warshadooda 2016. inkastoo shakhsiyaadkan loo ogol yahay in ay si xor ah u ganacsadaan, dhalinyarada Nigeria ayay dhibaatada badankeedu ay ku dhacaysaa.